guusha ugu muhiimsanayd ee gaadhiinta kubadda cagta ciyaaraya waxa weeyaan ciyaaraha gobolada Soomaaliland nin ciyaaryahan tahay kulli marxalad fara badan kubadda wada soo martay bal kooxii aad soo martay hadda dul marto waliba kooxihii laakiin markay si khaas ah noqoto waqti xaadirkan saddexda difaac aynu soo karo ugu wanaagsan yihiin kooxaha caasimada markaad la ciyaarso kooxda ugu adag aad ka hortimaado kooxda aad soo marto kooxda soo kooxda ugu caqabada badan kulan wacan wanaagsan daawadayaal halkan naga daawanaysaan waa Stan Sports oo barnaamijkan 10 weydiimood iyo ciyaaryahanada toddobaadkan barnaamijka waxa marti ku ah ciyaaryahan Khadir Mustafa oo ciyaar kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo gobolka Daadmareed ku soo dhow Khadir barnaamijka horumooda oo jirta barnaamijka marka hore Ilaahay baa mahad leh aad iyo aad baad u mahadsan tahay aan ku dhawey barnaamijka 10 su'aalood weydiimaha Cabsaaq Bende dawrana waan daawada adigana aad baan ku salaamay waa hagaag weydiinta kooda waxay leedahay Khadir Mustafa nin ciyaaryahan tahay kulli marxalad fara badan kubadda wada soo martay bal kooxii aad soo martay hadda dul marto waliba kooxihii heerarka kala duwanaa rasmiga ah nin la wadaag horta markii ugu horeysay sayraweedan anigu noqdo waxaan ku beeray kooxdii ugu horeysay soo qaatay waxay kooxda wasaaradda duulista hawada kooxda markaan muddo la joogay waxaan u soo wareegay kooxda dawladda hoose waqtigii ugu badnaa ee kubadda cagta sayraweeda intaan ciyaarayay ayaan la joogay marka markii dambe waxaan ku beeray kooxda wasaaradda caafimaadka walow hafsiisan la joogay iyaga laakiin imka waxaan ka tirsanay kooxda wasaaradda maaliyadda waa hagaag booska inta badan waxa lagu arkay weerarka waliba waxaad tahay gool dhaliya magafa ah ma jira boos kale oo aad kusoo bixi karto aad socon karto booskana waan dibiri karaa diliga ciyaarsi uu jira boos kale oo ka ciyaar karo sida dhacday ciyaarey goboladaba waxaan ahay aniga iyo Carabo labadeedu weerarkan gali jirnay marka marna ana baal gali jiray marna isaga gali jiray marka saddexda position weerarka xaq horaba saddexda baan ka ciyaar karaa anaha garbaha wad bixin kartaa garbaha waan gali karaa waa hagaag su'aasha saddexda waxay ku leedahay ma jirta guul muhiim ah intaad xirfadda kubadda cagta ku dhex jirto aad gaadhay dabcan way jirtaa guusha ugu muhiimsanayd ee gaadhiinta kubadda cagta ciyaaraya waxa weeyaan ciyaaraha gobolada Soomaaliland 2020 gobolka Daadmareed guusha ugu muhiimsanayd taas ay ahayd in gaadho waa hagaag weydiinta afraad waxay leedahay maxaa sababa inta badan inaad marba koox aad fanaanadeeda xidhato duulistaad ka soo bilowday waayaha dawladda hoose caafimaadka maaliyadda kooxihii ugu badnaa ilaa 4 kooxood oo marsa dhowr kooxood baa la kala heenay ku haray marka maxaa sababa marba inaad fanaanad aad xidhato Khadirahan horta sideen ognahay kubadda cagto way iska wajiye badan tahay marba xaalad bay leedahay sideen ku ognahay ciyaartoyda adduunkaba waxa jiray ciyaartoy 4 kooxood baa sheegaysa 10 kooxood oo kala duwan oo ciyaara maanta Zlatan Ibrahimovic oo kala kamida waa ciyaartoyda in oran karno waa ciyaartoyda ugu kooxaha badan leh marka mar walba waqtiyada iyo xaaladaha ayaa adigoo qiimeynaya marba kooxda aad leedahay kooxdaas mudan unbad ciyaartoygu joogaya kana mid ahaanaya waa hagaag weydiinta shanaad waxay leedahay difaaci ugu adka kulli nin weeraryahan tahay difaac ninka weeraryahanka kulli weeraryahan difaac uu caqabad ku noqda in baa ku noqda difaaci ugu adka ee ka horiyay kuma horta difaacyada dalku dhan aad wanaagsan yihiin dhamaantood halkan ma ka salaamaya laakiin si gaar ah hadaan israacid xus barnaamijyada noocan oo kala inta badan cid gaar ah baa lagu qoranayaa ku xus gabiyahay difaaci ugu wanaagsan aan arko inta la ciyaaray gabiyayaan oran karaa kii ugu horeeyay ka hor imaado ugu adka waa hagaag من الوضع كرتا سدح دفاع أو آد وناكسن أو دارون كرتوا حويان كو وناكسن مركل جاي مع دكوها. أرتكوها ده مركل جاي مع دو ويشران دفاعيان هذو ولا دفاعيان ده آد وناكسن بينه أوران كرنا وين ولا نهاي لكن ده مركل سخاص نقطة. وقت حاضر كان سدح الدفاع إن سولان كانوا وناكسيين وجمال أحمد يا خالد توريه iyo Umar Ogeedi saddexda difaac baan qaadan lahaa waa hagaag hadii lagu saddex weeraryahan oo iyaguna halis ah oo runtii aad oran karto waa niman dhinac walba ka dhisan marka laga yimaado kooxdaada ma jiraan dabcan saddexda weeraryahan in oran lahaa ugu wanaagsan yihiin ama soo xulan lahaa waxa weeye Amiin Xirsi Abdu Duud iyo Xamsa Ziyaar saddexda ciyaartoy baan weerarka oran lahaa khadka dhexe saddex ciyaaryahan oo khadka uga dhaxaad oran karto waa runtii niman aad u halis badan saddexda nin in oran lahaa dhexda aan u dooran lahaa waxaa kamid ah Abaadir iyo Cadeeye iyo Allah musta'an ninka la yiraahdo
ninka gaashaan u ciyaaraya China. kooxaha caasimadda markaad la ciyaarso kooxda ugu adag aad ka hortimaado waa kooxdee aad soo karto kooxdaas waa kooxda ugu caqabada badan. horta dee kooxaha muxuu ahaay way wada wanaagsan yihiin kooxaha caasimaddu, laakiin koox ahaan markaan isla dee kooxaas inkastoo dee aniga laftarkaygu aan kolba u ciyaaro dee marna anigoo maalidda la ciyaaraya baan dee tiimamka la ciyaaraya oo dee marna anigoo dowladda soo joogo baan la ciyaaraya dee isku tiimamka un bay noqonayaan, laakiin tiim ahaan tiimkan is odhan karo dee waa tiimamka ugu awooda badan ama ciyaaraha ugu badan ee xifaaltankan isku hornimaadno waa booliska wey. waa hagaag. su-aasha ugu dambeysa ama weydiinta ugu dambeysa waxay ku leedahay waxaa jira dee niman weeryahanaa oo caasimadda soo maray kuwa ka tegay dalka iyo kuwa hadda jooga weliba aad baa la isku kala nifaaqaa niman goolma kafayaalna waa tihiin. waa adiga oo Khadir Mustafa iyo ciyaaryahanka Aamin Xirse la yiraahdo iyo ciyaaryahankii hore ugu ciyaari jiray kooxda Maaldiga gobolka Daadmareer Axmed Carab. maxaad odhan kartaa waad ku kala duwan tihiin kubadahan marka laga hadlayo xagga weerarka? horta marka hore labadoodaba halkan baan ka salaamayaa oo laba nin oo aad u qaaliya oo weliba aanu saaxiibanahay dhow. Carabo isaga dee gobolkii baanu soo wada matalnay, Amiinna dee isku koox maanaan noqon, laakiin haddana in dadka dee inta badan iskugu dhow ayaanu nahay. labadoodu waa laba ciyaartooy oon odhan karo maanta Somaliland waa ciyaartooydii ugu wanaagsanaa ee soo maray. marka horta qof waliba wax gaara oo khibrad hibe gaara oo Ilaahay siiyey baa jirta. marka iyagana aad baan halkan uga salaamaya. waxaan odhan karaa waa laba ninoo aad u wanaagsan Soomaaliya dalka ku. Aamin muxuu gaar u yahay odhan kartaa weerarkiisa? wallahi Aamin dee wuxuu ku wanaagsan yahay waxyaabaha ku wanaagsan horta heerka ka mid ah heerka kale aad buu u wanaagsan yahay. dee kubadda bidix iyo midigna ku wanaagsan yahay. marka Aaminna halkan baan ka salaamaya. Axmed Carabana dee isagu marka laga tago 9kii dee ilaa dhexdii ilaa difaacii buu soo gelaya. صح. marka isagu nin iska position badan baa. adiga ahaana xagga goolka baan odhan karaa anigu inta badan chance-ka goolasha waayo saddexdeeduba liigagii waan wada ciyaarnay. dee horyaalka gool inta cid ku guuleysatayna kulay anigu baa jira. marka xagga goolasha un bay dee noqon kartaa inaan ku kala duwanay. waa hagaag aad baad mahadsan tahay. intaas ayaynu kusoo gabagabeynaa barnaamijkeeni tobanka weydiimood oo martuu ku ahaa ciyaaryahanka ugu ciyaaro afka hore kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda Khadir Mustafa. aad baan kaaga mahadcelinayaa.